waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku werwaraynaa wadankiina wax u barta oo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawadayaal kusoo dhowaada cashirkeena sideedaad ee barashada aaladda scientific calculator-ka. cashirkeena sideedaad waxaan ku qaadan doonaa haddii allah awoodda la ogolaado jabtar cusub oo ah complex number. complex numberka sida loo geliyo labadan scientific ee aan ku baraatikayno casharada oo ah scientific cadaanka ee la yiraahdo ES plus scientific calculator iyo scientific madowga ee la yiraahdo MS plus scientific calculator. waxaan ku hormaraynaa scientific cadaanka sida loo geliyo complex numberka. sidoo kale waxaan baraatikada ku sameyn doonaa afarta xisaabfal laba ka mid ah, labada kalena adinka ayaa ku baraatikay doona. afarta xisaabfal waa ku dar, ka jar, ku dhufo iyo u qaybi. waxaan ku sameyn doonaa baraatikada laba ka mid ah, waxaan idinku tusin doonaa si baraatika ah, halka qaybta kalena aad adinka baraatikaysan doontaan. markaan rabno inaan gelino scientifican cadaanka ah complex number, waxaan taabanaynaa mode K, kadibna waxaan dooranaynaa lambar 2 oo ay ku qoran tahay complex number. okay, kor waxaa nooga soo baxday complex number, waxay caddaynaysaa in ii dooran tahay complex number. waxaan gelinayaa tiradii aan rabay inaan isku daro ama kala jaro ama isku dhufto ama isu qaybiyo. waxaan furanayaa bracket, kadibna waxaan gelinayaa tirada aan rabo inaan xisaabta ku sameeyo. tirada waxay noqonaysaa 2 oo ah qaybta realka ah plus 3 oo ah qaybta imaginary-ga ay la socoto. qaybta imaginary-ga oo ayda ay wadata waxaad rabtaa markaad rabtid inaad soo dooratid waxaad taabanaysaa ing. okay, markaan rabno inaan gelino scientifican cadaanka ah complex numberka, waxaan taabanaynaa mode K, kadibna waxaan dooranaynaa lambar 2 oo ay ku qoran tahay complex number. okay, kadib kor waxaa ka soo baxday complex number. waxaan gelinaynaa xisaabta aan rabno inaan baraatikada ku sameyno. ka hor intaan xisaabta bilaabin, bracket ayaa furanaysaa. waxaan gelinaynaa 2 oo ah qaybta realka plus qaybta imaginary-ga oo ah 3. ayda markii aad rabtid inaad dooratidna waxaad taabanaysaa eng meeshan ay ku qoran tahay. okay, bracketka xiraysaa. haddii aad rabtid inaad ku dartid, ku dar ayaa taabanaysaa. sidoo kale haddii aad rabtid inaad ka jartid, ka jar ayaa taabanaysaa. sidoo kale haddii aad rabtid ku dhufasho, waxaad taabanaysaa ku dhufo. haddii aad qayb rabtidna waxaad taabanaysaa calaamadda qaybta. hadda waxaan sameynaynaa, waan isku daraynaa, plus ayaan sameynaynaa, kadibna bracket kale ayaan furaynaa. tirada kale ee aan ku dari rabno waa 5 oo ah qaybta realka iyo 6 oo wadata I oo imaginary muujinaysa. okay, bracketka ayaan soo xiraynaa, kadibna equal ayaan taabanaynaa. waxaa noo soo baxday 7 plus 9i oo ah 7 oo ah qaybta realka iyo 9i oo ah qaybta imaginary-ga. okay, sidiisi ka duwan haddii aan rabno inaan qaybtan ku dhufasho ka dhigno, ku dhufasho ayay noqonaysaa. marka waxaan sameynaynaa ayadoo qayb ah ayaan baraatikada mar kale ku sameynaynaa. waxaan furaynaa bracketkii, kadibna waxaan taabanaynaa 2 plus 3i oo ah xisaabtii aan hore u gelinay. waxaan xiraynaa bracketkii, kadibna waxaan taabanaynaa calaamadda qaybta, kadibna waxaan furaynaa bil. bracketka markii aad furtid waxaan gelinaynaa tirada labaad oo ah 5 plus 6i, kadibna waxaan soo xiraynaa bracketka. kadib waxaa noo soo bixi doontaa equal markaan taabano answerka 28/61 plus 3/61i waa qaybta realka iyo qaybta imaginary-ga. afarta xisaabfal sidaas ayaad complex numberka marka la joogo ugu sameynaysaa scientifican cadaanka ah ee la yiraahdo ES plus scientific calculator. intaas ayaanu ku ekeynaynaa casharkeena maanta. waad ku mahadsantahay daawashada video.